kusoo dhawaada kalsame TV wararkaan idin haynana waxaa kamid ah cod laga duubay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu difaacayaa iminka wada sheekaysiga codka laga duubay iyo waxa uu ahaa waxaan kaloo eegi doonaa sheeko aad loogu faafiyay baraha bulshada oo ah wabiga Furaad oo markan biyihiisa gureen iyo buurtii dahabka ahayd ee rasuulka Kaleey salaatu wasalaam hore noogu sheegay oo hadda banaanka iman karta waxaan kaloo idin haynaa maxkamad Hindiya ku taalo oo xukun xabsi daa'ina ku riday hogaamiyihii gobolka Kashmir ninkaas waxa loo haystaa argagixisada iyo isku dhacyo gobolkaasi ka dhacay in isaga uu qayb ka ahaa xuska maalinta Afrika iyo dalal dhowr ah oo aanu eegi doono horumarada dhinaca dhaqaalaha amniga iyo waxbarashada kuwa sameeyay qaybta dambe warkeenana waxa daawan doontaan nin raadinayay 26 sano gacan ku dhiglihii dilay gabadhiisa oo markii dambe la kulmay daawadayaal haddaad nagu cusub tahay Kalsame TV si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay caalamka waxa aad nagu soo biiri kartaa adigoo subscribe dhaha gambaleelka furta si aan wararka aan soo gelino channelkan aad u aragto waad mahadsan tahay sida aad u dooratay Kalsame TV aan ku bilowno cod ayaa laga duubay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping xilli uu wada sheekaysi la yeelanayay madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay wada hadalkaas telefoonka ayaa Majel Bachelet iyo waliba madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa dhaleeceeyay wadamada siyaasad ahaan Shiinaha iyadoo taageerada u hayay xuquuqda aadanaha iyo sida ay sheegtay warbaahinta dawladda oo aan soo hadal qaadin inta wada hadalka uu socday madaxweyne Xi Jinping dhaleeceen xoog leh ayaana loogu jeediyay arintaas codka laga duubay madaxweynaha Shiinaha Master Xi Jinping ayaa difaacay iyadoo dawladdiisa xilli uu la hadlayay madax xuquuqul insaanka qaramada midoobay ninka qaabilsan ee la yiraahdo Majel Bachelet wuxuuna Shiinaha ku dooday wax ka qabasho la'aanta xuquuqda aadanaha iyo dadka lagu laayo dalkiisa ayaa uu beeniyay madaxweynaha Shiinaha ayaa waxa uu sidoo kale si qoto dheer su'aalo looga weydiiyay wada hadalka inta uu socday codka laga duubay laga dhadhansan karay in uu ka meermeeriyay su'aalaha qaar laakiin uu ku doodayo in eedeymaha loo jeedinayo dawladdiisa ay tahay mid waxba kama jiraan dawladda Shiinaha oo ah wadan maamulkiisa shuuci uu yahay ayaa inta badan xuquuqul aadanaha waxyaabo ka dhan ay ka dhacaan xadgudubiyada ka dhanka ah qoomiyadda Uyghur ee galbeedka fog ee dalka Shiinaha ayaa si gaar ah wax looga weydiiyay socdaalka muranka dhaliyay ee Majel Bachelet uu qaadan doono 6 maalmood ayaa socdaalkiisa waxa uu ku tagi doonaa gobolka Xinjiang la yiraahdo ee dalka Shiinaha halkaas oo xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul aadanaha uu sheegay in sanadkii hore ay aaminsan yihiin xubnaha muslimiinta laga tirada badan yahay in si sharci darro ah loogu xiray qaarkood loola dhaqmay laguna qasbay in ay shaqeeyaan waqti aad u fog iyadoo aan la siinaynin raashin iyo cabitaan intuba haddana ma jiro war lagu sheegay warbaahinta dawladda Shiinaha oo arintaas xaqiijinayay xisaabta kulanka muuqaalkaas iyo codka laga duubay madaxweyne Xi Jinping ayaana warbaahinta aan loo adeegsan asaahate waxa rikoor ahaan u haysta qaramada midoobay oo waqtiga ay rabto golaha ammaanka qaramada midoobay ku soo horbandhigi karta kulan weynaha ay madaxda ka qayb galayaan bal markan haddaan fiirino dalka Hindiya maxkamad ku taala ayaa waxa ay xukun ku riday hogaamiyihii gobolka Kashmir ninkan ayaa waxa lagu eedeeyay in uu ka qayb qaatay isku dhacyo dhiig uu ku daatay iyo rabshado dawladda laga soo horjeeday argagixisada inuu taageeray iyo booliiska dhibaatooyin loogu geystay ayaa lagu eedeeyay xiritaanka goobo ganacsi oo xuduudda gobolka Kashmir dhinaca Pakistan uu la wadaago ayaa sidoo kale lagu eedeeyay ninkan Maxamed Yaasin Malik oo 56 sano jir ah ayaa waxa uu ahaa mid maamulayay gobolada go'doonka ah ee Jammu iyo waliba Kashmir inkastoo xorriyadda ay qaateen labada gobol muslimiinta laga tirada badan yahay ee Kashmir ayaa dhibaatada ugu badan ay ku dhacday sanadkii 1947 xilligii Hindiya ay ka qaadanaysay gumeystihii Ingiriiska xorriyadda iyo madax banaanida guud ayaa haddana labada wadan ee Pakistan iyo Hindiya oo ay kala go'een waxay sabab ka dhigtay in ay calaamadeystaan meelo qaarkood oo labada wadan dagaallo ay soo dhex mareen kadib loo kala calaamadeeyay in mid walba uu leeyahay intiisa Maxamed Yaasin Malik ayaa xukun cimrigaha ku furta lagu riday iyadoo ay hareere socdeen ciidamada booliiska ayaana maxkamadda ugu dambeyn waxay u dirtay jeelka kaasi oo xabsi daa'inkaas uu ku qaadan doono inta noloshiisa ka dhiman isagoo hadda da'da 56 sano jirka ku jira
waa hagaag Kalsame TV ayaad weli nagala socotaan bal markana sheeko kooban ayaan idin la wadaagayna webiga Furaad ee dalka Ciraaq ayaa waxa uu bilaabay inuu biyihiisa guro waxaana dhawaan bilaaban doonta sida dadka qaar ay leeyihiin buurtii dahabka ahayd ee Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay in ay soo bixi doonto buurta dahabka ee webiga kolkuu guro soo baxaysa waa la isku layn doonaa sida uu rasuulka inoo sheegay Nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam wuxuu dardaarmay in qofkii soo gaara inuusan buurtaas dahabka ah waxba ka qaadan sidoo kale waxa uu suubanaheena calayhi salaatu wasalaam Nabi Muhammad inoo sii sheegay sida loogu dagaalami doono qiyaamaha dhici mayso ilaa webiga Furaad uu guro oo buur dahab ahi ay ka soo dhex baxdo dadkuna ay isku dhex dilaan boqolkii qofba 99 kamid ah ayaa la dili doonaan nin kastana wuxuu is oran waxa laga yaabaa inaad noqoto ninka kaliya ee badbaadaya ee boqolaad sidaas la ajligeed ayaana buurta dahabka la wada raadinaya hadda dalka Ciraaq gobolka uu maro webiga Furaad ayaa waxa laga dareemayaa in biyihii ay gureen waxaana soo dhawaatay sida la leeyahay waqtigii la arki lahaa buurta dahabka ahayd ee webiga ku dhex tiilay dadka qaar ayaana waxa ay hadda u dhigtaagayaan waxa dhici kara waxaana dadka ay badankood soo xasuusanayaan kalaamkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ahayd in la gaarayo qiyaamaha aysan dhici doonin ilaa webiga Furaad uu guro oo buurta dahabka ah ay ka soo dhex baxdo wixii dhici doono Ilaahay baa og laakiin hadda biyihii webiga Furaad ayaa guray sida dadka qaar ay arki karaan sawir laga soo qaaday webiga maalinta Afrika ayaa dalal badan looga dabaaldegay munaasabada ballaaran ayaa dhacay wadamada qaarkood ayaana fantasiye iyo waliba mahrajaano ay dhigayaan mid walbaana waxa uu soo bandhigay qaab ahaan horumarka uu gaaray dalka Rwanda ayaa waxa lagu amaani karaa nadaafada iyo waliba horumarka dhinaca dhismaha ay gaareen Rwanda waxa lagu xasuustaa in ay ka dhaceen xasuuq wax lagu tilmaamay sanadkii 1994 waxaana qabiilada Hutuga iyo Tutsiga ay iska laayeen kumanaan kun oo qofood madaxweynaha wadanka Rwanda ninka la yiraahdo Paul Kagame ayaa dhexda u xirtay sidii dadkiisa uu u kala dhexgali lahaa dalkana waa uu badbaadiyay Kigali oo ah caasimadda Rwanda waa magaalada ugu nadiifsan ugu bilicsan marka la eego magaalooyinka Afrika dhaca dhirta cagaaran ayaana lagu beeray ee soo jiidashada leh sidoo kale wadamada South Africa Mozambique Angola Ethiopia iyo Kenya ayaa safka hore ka soo galay wadamada Afrika ee horumarka badan sameeyay wadamada kale ee iyagana la amaani kara waxa kamid ah Uganda oo dhinaca waxbarashada dadku ay 40% aadaan sida lagu amaani karo dhaqaalaha wadamada qaar ee kobaca sameeyay ayaa iyana waxa la soo sheegayaa in wadamo kale ay iyaguna jiraan oo Afrika kamid ah isla markaana aan maalinta Afrika ama Happy Africa Day loo yaqaano aysan uga qayb noqon karin si la mid ah wadamada go'doonka la galiyay ee hogaankooda ay adag yihiin Sudan Eritrea iyo wadamo kale ayaa kamid ah kuwa jujuubka awoodeed ku hoos nool oo dadkooda aysan xoriyad badan haysanin oo maalinta Afrika aan xus ballaaran laga sameyn karin wadamadaasi qodobka ugu dambeeya Kalsame TV wararka aan idin hayno ayaa markana fiirinayna Martin Mastre ku dhawaad 30 sano wuxuu ka warsugayay halka uu ku dambeyn doono kiiska dil loo geystay gabadhiisa oo aan la garanayn cidda falkaasi u geysatay muddo dheerna booliiska iyo garsoorkaba waxay ku howlanaayeen baaritaan qoto dheer oo ay ku ogaanayaan dambiilaha falkaasi geystay waqtiga waxa uu soo guraba aabaha gabadha wuxuu saxiixay racfaanka ugu dambeeyay ee maxkamadda sare ee federaalka ee dalka Brazil oo ay ka diiday in loo gacan geliyo ninkii lagu helay inuu dilay gabadhiisa Mastre ayaa waxa uu noloshiisa inteeda badan ku qaatay sidii uu ku ogaan lahaa Jamie Zade oo 1996 lagu xukumay 27 sano oo xariga hase yeeshee ninkaas ayaana la xirin oo 2 sano ka hor xukunkiisa waa uu baxsaday wuxuuna aaday dalka Colombia baadi goobka soo qabashada ninkaas loogu jiro waxay qaadatay dhowr iyo 20 sano iyadoo ugu dambeyn booliska adduunka Interpol ay sanadkii 2020 2 sano ka hor ay soo qabteen xilli uu ninkaasi ku sugnaa magaalada Belo Horizonte ee dalka Brazil ninka faldambiyeedka dilka loo haysto ayaana nolol caadi ah oo degan ku jiray isaga oo magacii bedeshay lana baxay Henry dos Santos Abdallah
wuxuuna guursaday haweeney reer Baraasiila waxayna u dhashay 2 caruur waxaan nabad iyo nasasho buuxda aan helay markii la helo ninkii gabadhayda dilay laguna qaado sharciga ciqaabta ee u yaala dalka Colombia ayuu yiri Martin Mastare oo wareysi siinayay BBC-da qaybteeda Baraasiil ka howlgasha hamigii gabadhaas oo 18 sano jirka ah ee adduunka ay ku lahayd waxa ay soo afjarantay kowdii bishii Janaayo sanadkii 1994 Nancy aabaheed hooyadeed iyo walaalaheed sanadka cusub ayay u dabaaldegayeen iyaga oo ku sugan gurigooda saqdii dhexe maalinta ayuu aabaheed reerka macsalaameeyay si uu saaxiibadiis ula soo dabaaldego maalinta sanadka cusub Martin gurigiisa ayuu ku soo noqday wuuna iska seexday saacadu markay ahayd 6 subaxnimo ayuu hurdada ka toosay wuxuuna qolkeeda ka fiiriyay Nancy balse waa cidna ma joogin meel kasta markii gabadhiisa uu ka raadiyay uu ka waayay wuxuu aaday guriga Jaame oo ah gabadha saaxiibkeed wuxuuna gurigeeda tagay wiilka hooyadii oo guriga tirtirayso على حال وحول ولا وايي مارتن وحو دغدغ ku tagay isbitaalka wuxuu la kulmay jaami aabihi oo uu ku yiri gabadhaada inay isdisho ayay damacday haddana waa dhaawac oo qolka qalinka ayay ku jirtaa waa uu yaabay waxaan aaminsanaa mar walbana aan rajeynayay waqtiga haba dheeraadeen ninkii gabadhayda dilay in mar uun la soo qaban doono booliska Interpol markii ay soo waceen oo ay sheegeen gacan ku dhiglihii gabadhayda dilay farxad ayaan dhulka aad ula dhacay ilaahay ayaan u mahad celiyay gabadhaydiina waxaan cadaalad u helay 27 sano kadib ayuu yiri Martin geerida Nancy waxay kala dhantaashay farxadii qoyska oo dhan Master iyo xaaskiisa way kala tageen ama isfureen halka wiilka kali ah ee ay dhaleen uu wareegay dhinacaasi dalka Mareykanka guud ahaan daawadayaal qisadaas ayaan ku soo gabagabeynayna kala Sama TV iyo nagala socoteen intaan wararkan kala dib isku arki doono nabadgelyo.